waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaana la jeclow waa muurta ay igu saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cabdilaahi Aadan Cumar Wayaba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland waa dad lagu yaqaan sida taariikhda ku xusan inay yihiin kuwa weligood ku dhaata magaca Soomaalinimada waxaana lagu tilmaamaa inay yihiin bulshada kaliya ee wixii ugu qaalisanaa ee hantiyeen u quuray isku keenista shantii Soomaaliyeed 26 Juun 1960 balse halkii ay ka filayeen abaalgud ay bedelkeeda ka dhaxleen burbur gees walba leh iyo inta rabtarab la isugu xidhiidho oo la isirlaayo inkastoo waxyeelooyinka ballaaran ay ka soo gaadheen isku keenista shantii Soomaalida haddana dadka reer Somaliland marnaba arrintaasi kumay reebin urku taalo waxaanay u muuqatay in xaaladda Soomaalidu ku jirto u roon tahay in shantii mid walba halkiisa uu ku barakaysto inta la isku helayo qulub daacad oo midaysan iyadoo dalka Somaliland noqday burburkii labadii Israac kadib inay noqoto meesha kaliya ee gabaad u noqotay nabadna ay ku helaan dadkii ka soo qaxay dagaaladii kulula ee xidhiidhka ahaa ee ka socday Soomaaliya laga soo bilaabo kii UNISOM ee Mareykanku hogaaminayay dadka reer Somaliland ma aha dad jeclaysta oo ku farxa dhibaatooyinka kala duwan ee haleela Soomaalida oo ay ka mid yihiin colaadaha dhexdooda meel kasta oo ay kala joogaan balse waa kuwa u damqada oo u naxa lana wadaaga dhibaatadooda waxaana cadaynaya sidii degdeg ahayd ee ay shacbiga iyo dawladda jamhuuriyadda Somaliland ugu gurmadeen fatahaadii iyo abaarihii banaayo ku habsaday Soomaaliya sida fatahaadii beledweyne iyo dadkii abaaruhu soo barakiciyeen ee Muqdisho daafeeda wanaa ee kaalmooyinka la gaarsiiyay dhacdooyinka kale ee in la xuso mudan waxa kamid ahaa markii uu Korneyl Cabdilaahi Yuusuf 2003 soo baxsaday Janaacada Muuse iyo ciidankiisii ee uu soo baxsaday dhinaca Somaliland gaar ahaan deegaanka Celefayn waxaana jananka la keenay oo la dejiyay hotelka Ambassador kadibna waxa ay Somaliland ka hawlgashay heshiisiintoodii taasoo ay ku guuleysatay inay gacanta isku saarto labadii hogaamiye ee Puntland ku loolamayay isla markaana ay heshiis qoran u kala saxeexdo magaalada Boosaaso 17 August 2003 hase yeeshee taa bedelkeeda wuxuu maamulkii Puntland ee Soomaaliya abaalgud uga dhigay reer Somaliland inuu dhexdooda dab ka shido halkuu ka baqtiin lahaa shaqaaqadii ka bilaabantay gudaha magaalada Laascaanood horaantii 2023 inkastoo Somaliland mar horeba xogogaal u ahayd in maamulka Garowe uu ahaa ka dambeeyay asbaabihii dhaliyay shaqaaqadii Laascaanood balse dagaalka isku bedeshay kadib markii maamulkaasi uu ka bareeray inuu ciidan beeleedkiisii oo aad u hubaysan ku soo daabulo gudaha Laascaanood talaabadaas oo sababtay in dadkii deganaa magaaladu guud ahaanba ay barakacaan haddaba maanta oo dagaal ka dhex qarxay ciidan beeleedyadii maamulka Garowe dadka reer Somaliland habaari maayaan una ducayn maayaan waayo kamay galabsan duco oo dhowr maalmood ka hor dagaalka Garowe ayuu madaxweyne dariga maamulkaasi ku dhawaaqay inuu mar kale maleeshiyaadkiisa oo si casriyeysan u soo hubeeyay ay weerar ballaaran ku soo geysiin doonaan Laascaanood si ay dhiig hor leh oo badan u daato habaarina maayaan oo ma jecla reer Somaliland colaadda Soomaalida u dhaxaysa inay sii socoto si kasta ahaatee maadaama aanay Ilaahay cidi wax loogayn waxa ka soo hormaray dagaalkii uu ku soo waday Laascaanood kee ka qarxay magaalada Garowe kaas oo dhiig badan ku daatay sida muuqatana malaha 10 ugu filan dhacdadan oo inta aqliga fayoobi fahmi karaan maadaama diinteenu farayso in waxa aad naftaada la jeceshahay aad walaalkaana la jeclaato sida laga arkay warbaahinta toddobaadkii la soo dhaafay maamulka Garowe si fiican ayuu u dareemay dhibta barakaca iyo burburka hantiyeed iyo magaalo
ee uu leeyahay meel kastoo uu dagaal ka dhaco iyo sida uu maanta maamulka Garowe u raadinayo uguna baahan yihiin in nabadii iyo xasiloonidii ka jirtay Garowe dib ugu soo laabato taas oo sidaas la mid ah looga baahan yahay in Laascaanoodna ay ku garabsiiyaan sidii ay u soo laaban lahayd nabadii iyo xasiloonidii ay ku naaloonayeen ka hor intii aanay ku soo duulin. intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa faaladii warka oo uu qoray Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab waxaan idila socodsiinayaa anigoo Saabi Cabdi Goole.